markabka magaciisa waxaa la yiraahdaa Uruk Reis waa markabkii oo qodi lahay shidaalka Soomaaliya ee Turkiga wadanka Turkiga ayaa soo dhiibay oo kadib heshiiska dhacay Soomaaliya iyo Turkiga bishii 3 sanadkan markabkan ayaa la sheegay intuu hadda safarkiisa dheeray oo ilaa from Turkiga ilaa Soomaaliya as bilaabay markabkan ayaa la sheegay intuu soo mari doono dhulul badan oo aad iyo aad halistooda u wato oo la isku haysto ilaa had dagaal la isku haysto markabkan wuxuu soo mari doonaa Mediterranean Sea in Canal Switzerland oo Masar iyo badweynta India oo xagga Soomaaliya iska soo gali doona markabkan maxaa la sheegay intuu Soomaaliya soo gali doono muddo 29 ilaa 30 birir gudahood ayaa soo gali doona oo markii taan imaado as hoosho oo in shidaalka soo saara as hore ka sii gali doono oo la bashquuli doono hore ka sii gali doono run ahaantii aniga ahaantii maxaa dhihi karaa markabka maxuu Soomaaliya ku soo hagaagi doona ama shidaalka soo saari doona waqti adduunka dhamaal shidaal loogu baahan doono oo qiimaha shidaalka kordhi doono oo sidaas daraadeed Soomaaliya maxay ka lacag badan fara badan ayay ka dhalin doontaa insha Allah hadii oo markab hadii oo shidaalka si nabad loo soo saaro maxaa yeelay dawladda Iran maadaama ay Israa'iil dagaal ay ku qaaday oo ay duqeysay Israa'iil maxay balan qaadintii oo ay soo argudin doonto idoo gubi doonto kaalin shidaal kulli oo Iran kooda yaala sida daraadeed Russia ayaa dhaxday intii oo ay hanjabtay dhihi doonto intii goyn doonto shidaal dhamaal oo dhoofinaysa sida daraadeed shidaalka qiimihiisa kulli ayaa kordhi doono oo qiimaha shidaalka Soomaaliya markiis imaadahay kordhayo ahaan doona oo lacag badan ayaana meesha laga dhalin karaa insha Allah markabkan maxaa loo diyaari oo markabyal kale ama doomo dagaal oo garab socdo oo ilaalin doono wax walba meeshii soo wajahi kara maxaa yeelay dawlado badan ayaa oo wadamo badan ay soo mari doona oo dawlado badan oo Soomaaliya nacab ay markabka soo mari doona oo ka hormaadsan horumarka Soomaaliya markab Turki maxay ku balan qaaday intii qof walba oo markabka isku day intuu wax soo gaarsiiyay intii ay difaac ama ay la dagaala doonto oo dagaal weyn dhexmar dhexdooda comment maxaas noo la wadaagtaa aragtidaada iyo sida ay noqon doonto iyo isbedel ku imaada doono Soomaaliya iyo dawladeeda markii shidaalkaas oo la soo saaro oo dhaqaalaha Soomaaliya imaada doono waxaas kulli comment noo la soo wadaag muuqaalka channel kan subscribe saar muuqaalkan like saar in share bye bye